ان waxay leeyihiin maxamuud waxa la geeyay sangu baa loo dhiibay soo oo waxa laga datay jigjiga aabaha anagu maanan oranin hala geeyo xaj maanan rabin maanan ku tala jirin aabay waxaan u sanayaa nin iska celin kara ma aha lug buu ka cabanayay lug baa jabnay waxa la geeyay sacuudiga markii la geeyay aabahay da anagi waxay noqotay arin ugu maaragtay oday sida u xanuunsanaya dawladda Soomaaliya inay xil aad isaga saarin ay dhahdo arano codsiga meeshu ka yimid ciidii codsatay waxba igama gelin aabay xanuunsan baa la geeyay magaalada Maka marka hadda dawladda Soomaaliya waxa ma oranaya laakiin aabay xanuunsan bay geeyeen waxa weeyaan waxa qalad ah in maaragtay abwaan dhiirana uu maanta soo galo la soo diro oo isagoo aabay ka hadlay sangu baa la afduubay waxa loogu sheekay xajka lagu geeyay sangu see loo afduubay anaga nool wuxuu dhalay oo dhan baa halkan jooga he does not need anybody inna uma baahna aabay inna uma baahna aan ilaahay waxa kaliya uu bulshada Soomaaliyeed uga baahan yahay waa duco wada ogtiin ilaa 2016 kii waxaan u sanaya abahay maal wiignu fiican yahay wiignu iska xanuunsanaya waa ruux macaan leh waa ruux dhikar leh aabahay misig baa jabtay markii la keenayay way jabnayd waxa laga soo qaaday Soomaaliya isagoo jaban dawladda Soomaaliya canaanteeda leedahay oday weyn oo jaban in la keeno ma aha Mako isagoo jaban baa la keenay aabahay ya aabay uu jabnaa dawladda Soomaaliya arinta waxa weeyaan nalgalameena tashanin waxba namayna weydiinin isagoo lugta jabanta la keenay cimradii xataa muuna marin aabahay muuna cimraysanin xanuunkii bishii May 31 ayaa la geeyay dhakhtarka waxa laga soo saaray maalintu soo baxay 2 cisho ka hor waxa uu xanuunsanaa uu ku jiray malaha 14 cisho dhakhtarka cimrana muuna arkin waxna muuna arkin wuuna xanuunsanay